السلام عليكم صاحبيال soo dhawaada kulan wacan oo wanaagsan maanta waxaan idin wadaa ciwaan xamaasadiisa wata ciwaankaasina wuxuu yahay 6 xaqiiqo ka ogaaw dibnahaaga ciwaanka maanta waxaan uga hadli doonaa 6 xaqiiqo oo ku saabsan dibnaha xaqiiqada koowaad waxay tahay dibnaheenu waxay ka samaysan yihiin lakab kamid ah lakabyada ugu qafiifsan ee maqaarku leeyahay macnaha maqaarka oo ka samaysan yihiin dibnaheenu waa ku aad qafiif ah marka loo eego xubnaha kale maqaarka jirku uu kala duwan yahay maqaarka saaran wajiga iyo kan saaran gacmaha iyo kan saaran jilibka kan saaran cagta iyo waliba kan saaran bushimaha aad ay kala duwan yihiin saas darteed maqaarka ugu qafiifsan ayay dibnaheenu ka samaysan yihiin xaqiiqada labaad dibnaheenu ma lahan wax midab ah tan markaa maqashid dad badan waxay isweydiinayaan sidee ku dhacday dibnaheenu midab ay leeyihiin waa madow maya waa guduud maya waa kofe qofba wax uu sheeganaya bal waxaan ku sheegayaa dibnaha waxaa midabka siiya xididada hoos mara maqaarka dibnaha ama faruuryaha ama bushimaha sida u taqaan xididada hoos mara ayaa midabka siiya xaqiiqada afraad waxay tahay dibnaheenu waxay kamid yihiin xubnaha ugu dareenka badan ee jirka bini'aadamka dibnuhu waxay leeyihiin 1 milyan oo neerf ah ama 1 milyan oo dareemayaal ah sidaas darteed waa mid kamid ah xubnaha ugu dareenka badan jirka bini'aadamka jirka qofka bini'aadamka ah isku dareen ma dareemuhu aad ay u kala duwan yihiin marka loo fiiriyo wajiga faruurta gacanta iyo waliba xubno kale oo badan xaqiiqada shanaad waxay tahay dibnaha ma sameeyaan ama ma ka yimaado wax dhidid ah maqaarku wuxuu caan ku yahay wuxuu leeyahay qanjirada dhididka soo saara bal faruuriyuhu kama mid ahan xubnaha dhididka sameeya oo ku yimaado dhididka oo leh qanjiradaas dhididka xaqiiqada lixaad maxay tahay waa wada fahmi kartiin xaqiiqada lixaad waxay tahay dibnaheenu ma lahan wax xaad ama tin ah jirka badankiisa wuxuu u qaybsamaa meel tin leh ama meel xaad leh meelaha timaha leh sunniyaha baararka timaha madaxa gumaarka iyo meelo kale inta kale jirkuna waxay u baahan tahay inuu leeyahay xaad sida wajiga gacmaha lugaha iyo qaybaha kala duwan taas waxay ahayd 6 xaqiiqo ee ku saabsanaa dibnaha markan waxaan rabaa inaan u faa'iideeyo ardayda barata kulliyadda caafimaadka qaab dhismeed ahaan ama maxay ka kooban yihiin dibnaha qofka waxay ka kooban yihiin qaybo badan qaybta kore oo la yiraahdo upper vermilion border iyo qaybta hoose dibinta hoose oo la dhaho lower vermilion border laba faruur ama faruurta kore ee tan hoose faruur dibno bushimo waxa waaye magacyadan dad badan ayaa soo weydiinaya qaar dhahaaya dibna maxay yihiin waxaan u maleynayaa ama rajeynayaa Soomaalidu si uu kala duwan yihiin inay wada fahmi doontiin waxay kale oo ka kooban yihiin qayb sare qayb hoose marka laga soo tago laba oral commissure laba dilaac ayay faruurta ka kooban tahay oo labada gees uga taal faruurta kore iyo faruurta hoose totally waa smooth waa sibibax halka faruurta kore ay leedahay tuberculosis ama kuuskuusyo faruurta kale waxay kale leedahay dilaac aad u qurux badan kaasi oo loo yaqaano filtramka wuxuu leeyahay laba gees oo kuskuusan oo la dhaho column filtram faruurta kore waxay leedahay meel yar oo wareeg camal ah oo gudan meeshasna waxaa la dhahaa copidis bow ayaduna waxay leedahay laba meel oo kuusan rajeynayaa faruurta iyo qaybaheeda inaad ka faa'iideysateen arday caafimaad oo kaliya maahan qof kasta oo kale ayaa ka faa'iideysan kara ayaad ugu mahadsan tahay daawashadaada haddii halkan soo gaartay waxaan kaaga mahadcelinayaa sida quruxda badan ee aad noola socotay waxaan kaa codsanayaa inaad channelka noo subscribe garaydo haddii aad wax ka faa'iiday sidoo kalena aad noo like garaydo wixii fikir ahna waa nala wadaagi kartaa waxaan ila soo wadaagi doonaa hadba ciwaanka ay u bataan dadku inay naga codsadaan hadda waxay naga sugayseen daawadii gaaska waan soo wadaa ayadana insha Allah ciwaano kale oo muhiim u ah bulshadan sidoo kale waan ku soo xiji doonaa aad iyo aad ugu mahadsantahay la socoshadaada